niyad jabka. Niyad jabku waa xaaladda ugu xanuunka badan ee maskaxda aadanaha soo marta. Waxa ayna ku reebtaa qofka hoos u dhaca caafimaadka iyo ka fogaanshaha ku dhex jirka bulshada. Waxaan si maalinle ah ku aragnaa ama na soo maro xaalado keena murugo. Murugada joogtada ahna waxa ay keentaa inuu qofka niyad jab ku dhaco. Calaamadaha lagu garto niyad jabka waxaa ka mid ah qofka oo isku arko hurdo badan ama hurdo la'aan, daal joogto ah, cunno xumo in lagu arko qofka, iyo qofka oo dareema inuu dambi galay oo kale, qofkii oo waxyaalihii uu jeclaa uu qaban waayo, iyo fakarka maskaxda oo hoos u dhac ku imaado. Sidee ayaa lagu daaweyn karaa niyad jabka? Joogteynta ku xirnaanshaha xariga alle ayaa lagu daaweeyaa niyad jabka. Sidoo kale waxaa lagu daaweeyaa qofka inuu helo caawinaad qaraabada iyo saaxiibada si ay niyad jabka uga kabsado. Sidoo kale waxyaalaha uu isaga daaweyn karo niyad jabka qofka waxaa ka mid ah in uu sameysto farxadiisa oo cidna uusan ka sugin.